السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا قروح بدن ee ku xiran Daily News waxaan caawa fariimo jacayl oo aad u qiimo badan u wada ragga xaaslayaasha ah xaaslow fariintan dhigaha u raaraci waayo wax badan ayaad ka faa'iidi doontaa waa 10 shay oo aad ku kasban karto qalbiga xaaskaaga ama aad ku hantii karto xaaskaaga qalbigeeda hadaba aan idin bilaabo oo idinkana dhigaha ee raaraciya oo qalbiga ee ruuxa xaaslayaal number 1 dhimalahan inta sano ee ka soo wareegatay guurkeena waxa jiri doonaan laba mar oo aan jeclaan doono inaan kula joogo waa hadda iyo weligay waan ku jeclahay macaanto lambar 2 waxa tahay hadiyad qaali ah oo eebe isiiyay dhoola cadeyntaadu waxay diraysaa qalbigayga la joogaagana wuxuu iga dhigaa qof aysan waxba ka maqnayn waan ku jeclahay maanta iyo abidba lambar 3 waa dalaalisaa qalbigayga oo waxaad ka buuxisaa jacayl markaad i eegto aniga jacayl daran oo aanan xad lahayn ayaan kuu sii qaadaa aad ayaan kuu jeclahay xaaskayga qiimaha badan lambar 4 waan jeclahay inaan eego indhahaaga maadaama ay ii jiidanayaan si aysan wax kale ii jiidan karin lambar 5 waan ku faraxsanahay inaad tahay qof fakar wanaagsan leh waan ku faraxsanahay inaad tahay qof faham leh waan ku faraxsanahay inaad tahay qof nafta loo huro laakiin inta badan waxaan ku faraxsanahay inaad tahay xaaskayga waan ku jeclahay lambar 6 waxaad tahay baryadaydii oo la aqbalay rajadaydii oo rumowday iyo riyadaydii oo aan helay lambar 7 mahadnaqayga ah inaan adiga kula kulmay waxaa ka siiyaa badan farxadda aad u keentay noloshayda number 8 wax kasta oo aad samayso ayaa ii ah ilo farxad leh ma murugoodo markaan kula joogo waad mahadsan tahay xaaskayga waana ku jeclahay number 9 dhammaan maalmahayga aan kula joogo waa maalmo u qalmo nolosha waxaan hilmaamay sida ay u eg tahay keli noolaanshaha lambar 10 xaaskayga boqorada ah waxay u eg tahay in jeclaantaada ay tahay waxa keliya ee saxda ah ee aan sameeyay intaan noolaa waan ku jeclahay noloshaydii quruxda badneeday